nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam saddex salaadooda madaxooda lama dhaafiyo rajulun amma qawman wahum lahu kaarihuun buu nabigu nin dad jujuub iskaga haysto salaad tukiyey iyagoo aan rabin salaadiisa waa khatar dee malaaka dawladdan iyo daddan qasabka ku haystaana ma dhaamayaan u malaynayaa dee salaad qura hal salaada kii ku haystay haddaan waxba helaynin ummadda dhan iska afduubtayna malaha ma dhaamayo laakiin xadiidka naskiisu wuxuu sheegayaa man amma qawman wahum lahu kaarihuun ninka dad imaam u noqda iyagoo necab waan rabin walidalik a'immada masaajidda iyo ragga masaajidda tukiya waxaa fiican inuu qulubta dadka ilaaliyo oo dadku qof ay raalli ka yihiin inuu noqdo maxay qofka dadka tukinaya oo masaajidka inaan lagu haysanin uun maxaa qorsakaramee tidhaahdaa maxaa tidhahdaa inaanu iska afduubanine inay muslimku wada socdaan qulubtu inay wada socotaaba ka muhiimsan waxa kaloo dhan sidaa ogeed buu nebigu yidhi wamra'atan baatat wa zawjuha calayha saakhitun gabadh hoyatay iyadoo ninkeedu u cadhaysayayana wax laga aqbali maayo idan dumarka muslimiinta waxa saaran inay isku dayaan zawjkeeda inay raalli geliso wamra'atan casad zawjaha xataa tarjicna xadiis kale sheegaya ka saddexaad waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wassalaam ka saddexaad waxa uu nebigu sheegay waa akhawaani mutasaarimaan laba walaalo oo iska laalaada xadiidkii muxuu sheegayay qof kasta oo ilaahay rumeeya qof kastaoo laa yushriku billaahi shay-an marka acmaasha ilaahay loo bandhigo khabiisaha iyo meelahaas oo kale in ilaahay dembigoo dhaafo xadiidkii sheegayay saxiixaynka ku yaallay laba mooyaane buu nebigu yidhi labadaasi waa kuwee laba ishaysta iyaga waxaa la idhahaa andira haadayni xataa yastalixa labadaa iyaga dib iga dhiga baa ilaahay yidhahda intay ka heshiinayaan idan akhwaan mutasaarimaan haddaynu isu wada cadhaysanno iska laalaadno cibaadada inaga xumaanaysa haddaynu rabno in cibaadadeennu cinda allahi ay maqbuul noqoto waa inaad qof qalbi saliima leh waa inaad ahaataa qofka mu'minka ahi nebiyullaahi ibraahim muxuu ku ducaysanayey aakhiro wuxuu weydiisanayey qalbigiisa in alla ka dhiga maxay qalbi caafimaad qaba